sidaan ayuu Ilaah wax kasta u sameeyey bilowgii. Ilaah wuxuu adduunka oo dhan iyo waxa dul joogay ku abuuray 6 cisho gudaheed. Markuu Ilaah abuuray dhulka, wuu madoobaa wuuna marnaa, waxna ma dhex oolin, laakiin ruuxda Ilaah waxay dul joogtay biyaha korkeeda. Kadibna Ilaah ayaa hadlay oo yidhi, ha ahaato iftiin. Kadib iftiin ayay ahaatay. Ilaah ayaa arkay iftiinkii yidhaahdayna, waa maalin. Madowgii ayuu ka dhex saaray maalintii yidhaahdayna, waa habeen. Wuxuu sameeyey iftiinka maalintii ugu horreysay. Maalintii labaad ee abuuridda, Ilaah ayaa yidhi, ha ahaato meel bannaan biyaha dhexdooda. Kadib way ahaatay. Meeshii bannaanayd Ilaah wuxuu ka sarraysiiyey dhulka, wuxuuna yidhi waa samada. Maalintii saddexaad Ilaah wuxuu yidhi, biyaha hal meel ha isugu tagaan, ciid engeganna ha soo muuqato. Biyihiina wuxuu u baxshay bad, ciidda engeganna wuxuu u baxshay dhul. Kadib Ilaah wuxuu yidhi, dhulku ha soo saaro dhir kala duwan iyo miro, sidaas ayayna noqotay. Ilaah wuxuu arkay in ay abuuristiisu wanaagsan tahay. Maalintii afraad Ilaah wuxuu yidhi, iftiin ha ahaato samada dhexdeeda. Waxaa soo muuqday qorraxda, bisha iyo xiddiga fara badan oo samada ku daadsan. Ilaah wuxuu u abuuray si ay iftiin u siiyaan dhulka iyo inay u ahaadaan calaamooyin, xilliyo, maalmo iyo sannado. Ilaah wuxuu arkay in ay abuuristiisu wanaagsan tahay. Maalintii shanaad Ilaah wuxuu uumay shimbiro ku duulaya cirka iyo malaay ku dabaalanaya biyaha. Dhammaan way kala duwanaayeen qaab ahaan iyo midab ahaanba. Ilaah wuxuu arkay in ay abuuristiisu wanaagsan tahay, wuuna barakeeyey. Maalintii lixaad Ilaah wuxuu abuuray xayawaanaadka duurjoogta, xayawaanaadka guurguurta iyo xayawaanaadka kale oo dhan. Ilaah wuxuu arkay in ay abuuristiisu wanaagsan tahay. Kadib Ilaah wuxuu yidhi, aynu samayno bini'aadam oo aynu ka samayno muuqeenna. Waxay noqon doonaan kuwa xukuma dhulka iyo xayawaanka oo dhan. Markaasuu Ilaah dhoobada ka sameeyey nin kuna afuufay neeftiisa. Kadib ninkii wuxuu u bixiyey Aadam. Ilaah wuxuu abuuray beer uu ku noolaado Aadam si uu isna beerta u xanaaneeyo. Beerta dhexdeeda Ilaah wuxuu ku abuuray 2 geed, geedka nolosha iyo geedka aqoonta, wanaagga, xumaanta, dembiga iyo dhimashada. Wuxuuna u sheegay inuu dhammaan dhirta oo dhan cuni karo laga reebo geedka dhimashada. Haddii uu cunana uu ku dhiman doono. Kadib Ilaah wuxuu yidhi, ma fiicno inuu ninka keligii noolaado, waayo xayawaanka oo dhan mid qura Aadam ma caawinayaan. Ilaah wuxuu Aadam ku riday hurdo, wuuna seexday. Intaa kadib feertiisii ayuu ka abuuray naag una keenay iyadii isaga. Aadam markuu arkay iyadii ayuu yidhi, ugu dambayntii tani waa mid aniga ii eg. Kadib wuxuu ugu yeeray iyada naag, waayo waxaa laga sameeyey nin. Sidaasi darteed ayuu ninka uga tagaa hooyadiis iyo aabbihiis si uu naagtiisa ula noolaado, waxayna noqdaan mid. Ilaah wuxuu ka abuuray nin iyo naagba aragtidiisa, wuuna barakeeyey kuna yidhi, dhala carruur badan oo dhulkana buuxiya. Ilaah wuxuu arkay in wax kasta uu sameeyey ay aad u wanaagsan yihiin, aadna wuu ugu farxay dhammaan. Tanina waxay dhacday maalintii lixaad ee abuurka. Markay maalintii 7aad timid, Ilaah wuxuu dhammaystiray shaqadiisii abuurka, wuuna ka nastay wixii uu abuuray oo dhan. Wuxuuna ka dhigay maalinta 7aad maalin barakaysan oo quduus ah, maxaa yeelay wuxuu joojiyey shaqadii abuurka. Waana sidaas sida uu Ilaah u abuuray adduunka oo dhan iyo waxa dhex yaalla.